السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس وزراء ku-xigeenada wasiirada xildhibaanada dowladda Soomaaliyeed ee waddanka Kenya Nairobi waa salaamantiin. halkan waxaan soo istaagay inaan soo dhaweeyo rئيس wasaaraha, laakiin waxaan rabaa rئيس wasaaraha inaan u sheego inay maanta ay ahayd qorshaha in lagu kulmo isli, laakiin shirkan ugu dheeraada awgeed aan ku shiri weyno isli. laakiin waxaan ballan qaadaynaa insha Allah tacaala in marka dambe uu rئيس wasaaraha yimaado in jaalada Soomaaliyeed ee degan Nairobi uu kula kulmi doono xaafadda isli haddii la yiraahdo. midda kale rئيس wasaare maalmahan waxaa socdeen operationo ka jiray waddanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi. shalay waxaan la kulmay jaalada Soomaaliyeed xaafadda isli aan kula kulmay, waan la hadlay u sheegay in dowladda ku meel gaarka ay diyaar u tahay inay difaacdo. aan kala hadlay dowladda Kenya kala hadlay in aan la abaarin dadka Soomaaliyeed oo jooga, anigoo aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed halkaan degan ay aan dhihi karo badankooda ama aan dhihi karo 99.99% ay yihiin dad amniga dhowra, dad sharciga ilaaliyo. shalaytana ay ballan qaadeen inay nagala shaqeyn doonaan haddana safaaradda iyo dowladda Kenyaba inay iska soo saaraan dadka yar oo aan dhihi karo aadka u yar oo mataqaanaa ku dhex jira ama nabadda nacab inay soo saaraan ballan qaadeen. anaga haddaa safaaraddan waxaan ballan qaadnay inaan ayagana aan difaaci doono, la shaqeyn doono. hadduu la yiraahdo maalmahan socdan aan bilaaban doono diiwaangelin oo aan rabnay in dadka Soomaaliyeed oo degan halkaan la diiwaangeliyo kulli. marka warka kuma dheeraanayo, mudan rئيس wasaare kusoo dhawo. bismillahi raxmaani raxiim. runtii aad baan ugu mahadnaqayaa dadkii iska xilsaaray soo qabaqaabinta shirkan aanu ku kala warqaadanayno iskuna wareysanayno. meesha Nairobi baa la yidhaahdaa, warna idinkuma seegana, marka anigana lagooya ii taan u malaynaya. halkan baan nimid runtii wafdi aniga iyo wasiirada ila socdaa. waxaan u imid dowladda Kenya inaanu kala hadalno arrimo badan oo kulay naga dhexeeya labada dowladood darisahoo walaalo ah oo xiriir fiican ka dhexeeyo, sidii xiriirkaas loo horumarin lahaa guud ahaan iyo gaar ahaan arrimahan waayahan ka socday gobollada Jubbooyinka inaanu iska wareysano. waad la socotaan oo wafdi dowladda Kenya ayaa noo yimid 18 Oktoobar xamar noogu yimid, wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka gaashaandhigga. marka heshiiskii na dhex maray inaanu sii horumarino kana sii wada hadalno. inta cotaanoo waxaa dhacday in adduunka noo yimid, dowlad badan noo yimaadeen. prime minister ka horreeya Turki inuu yimid, madaxweynihii Jabuuti noo yimid, madax kaloo dhan ay timid. waa la socotaanoo waqti waxaana soo martay markii uu wasiir ku-xigeen dibadda yimaado marka qaarkood kulligii aan airbortka aadi jirnay, laakiin hadda airboort ma tagno, iyaga noo yimaada kulligood ilaa Soomaaliya nooga wada yimaada iyaga wada socda. waxaa weeye in waddankii uu xoroobo si dhaqso ah. oo la socotaanoo al-shabaab 6 August 2011 xamar bay ka baxeen, dagaal ku socday muddo. dad waxay yidhaahdaan al-shabaab iska tageen, al-shabaab faataxa kuma bixine khasab baa lagu bixiyey maaragta. marka haddii marka security-ga wax iska bedeleen adduunkiina yimid, waxaa la rabaa marka in opportunity-gaasan ka faa'iidaysano. waxaan isleeyahay sidii la rabay ugamaanaa faa'iidaysan, ama ha noqoto capacity xumo dhanka iyaga ah, ama ha noqoto si kalaba noqotee waxaan moodaa inaanan sidii la rabay uga faa'iidaysanayn. laakiin insha allahu kolley waxa weeye isbeddel yimid weeye oo dalkii iyo dadkii ku dhacay weeye oo loo baahan yahay in la ogaado. taas marka waxaan uga baxayaa dhanka abaarta iyo wixii laga qabtay iyo chanceska iyo opportunitieska jira weeye. waxaa hadda jira wadamo badan oo diyaar u ah inay Soomaaliya maanta wax la qabtaan, wax kala qabtaan dhanka gargaarka, dhanka dib u dhiska iyo horumarinta intaba diyaar u ah.
dhaqaalana diyaar u ah niyad sami wanaagsanna diyaar la ah annaga nagu xirantaha marka inaan ka faa'iideynay in kale markaan usoo gudbo dhanka siyaasadda waa la socotaanoo markii la soo saxeexay Kampala ka hor ka bacdi waxaan dhacay shirkii ka dhacay bishii September 4 ilaa 6 xamar la yiraahdo shirkii waa tashiga Soomaaliyeed runtii shirkaasi dad badan isma lahayn waa u dhacaya marka Soomaalida loogama baran in inta isu yimaadaan waqti yani kooban oo mucayana inta wax ku heshiiyaan wax soo saaraan laakiin runtii shirkii waa u dhacay iyadoo waliba ay tahay shir noocaas oo kale oo Soomaaliya ka dhacay kii horeeyay way jiraan shir wadan gudihiisa ka dhacay shirkii 93 ka dhacay Boorama oo lagu abuuray Somaliland shirkii ka dhacay 98 Garowe oo lagu abuuray Puntland way jiraan shirar ka dhacay laakiin localized ah oo maaragtay laakiin shir entitieski wadanka ka jiray ay isugu yimaadaan iyo dawladda dhexe waxa kii horeeyo oo ka dhaca xamar waxaa timid Puntland waxaa yimid Galmudug waxaa yimid ahlu sunna wa jamaa iyo dawladda oo ka soo qayb gashay shirkaas waqti yar oo 2 bari gudo 3 bari gudahoodana waxaa ka soo baxay documentiga la yiraahdo road map-ka runtii road map-ku waxa isleeyahay waa documenti aad u wanaagsan ciladihiisa waa yeelan karaa laakiin documenti waxa weeye annagana ka dawlad ahaan guide gareynaya oo na wadaya naguna khasbaya mar walba inaanu feejignaano oo wax qabad aan la nimaadno sababtoo ah wuxuu leeyahay waqti timelines buu leeyahay shaqo kastoo mucayan lagu qabanayo deadlinesna waa uu leeyahay marka la rabo inaan miid garayno mar walba marka taasi maaha inaan asxaan u sameynayno cid kale laakiin anaga laftiga iyaga wayna xirxiraysaa wayna consider garanaysaa macnaha waxa weeye waxaan ugu khasbaysaa inaan wax samayno runtii marka road map-kaasi wuxuu ka kooban yahay 4 waxyaabood saa la socotaan mid waa security-ga waa nabadgelyada midna waa reconciliation waxa la yiraahdo iyo political outreach oo ah dadkii ila nabadeeyo goboladiina la gaaro iyo dalka intiisa kale tan saddexaadna waa constitution-ka in wadanka loo sameeyo constitution loo sameeyo kan afraadna waa dawladnimo wanaag marka haddaan mid wax yar ka taabto dhanka nabadgelyada runtii dawladda jeedan wax badan baa iska bedelay dalkii xamar waa xor maanta 98% baa leedahay 99 meel yar bay nimankan kaga dambeeyaan insha Allah waqti dhowna waxaan u marinayaa in inta yarto harteen la israacin doono xamar ka bacdina aanu la isku dayo in la furo marka dhanka koonfurtana la soo aado dhanka waqooyigana la aado oo safety zone-ka dhulka yani nabadda la sii ballaariyo يعني حرينتو دنك كلام waa ka socotaa iyo dhanka gado iyo koonfur galbeedna waa ka socotaa dhanka kale jubooyinkana waa ka socotaa marka insha Allah waqti aan dheer waxaan isleeyahay shabaab waa laga saaraya xamar iyo dalka intiisa kala dhan waxyaabaha ay ka mid tahay inaanu sameeyno road map ku qoran waxa weeye in la sameeyo waxa la yiraahdo National Security Stabilization Plan oo ah qorshaha xasilinta dalka qorshahaasi hadda waan sameeynay ayadoo waliba la tashi la sameynayo dadka kale oo annaga wax nala wada entities-ka kale oo dawladda wax la wadaaga oo ay ka mid yihiin Puntland Galmudug ahlu sunna wa jamaa iyagoo la tashanayo ayaa hadda la dhameystiray qorshahaasi isbuucii la soo dhaafay ayaa golaha wasiirada laga baaskireeyay haddana waxa loo gudbinayaa baarlamaanka si ay uga doodaan ka bacdina ansixiyaan kaas ayuuna ku cad yahay qorshaha xasilinta dalka ama ha noqoto dhismaha ciidamada dhismaha booliiska maxkamadaha sharciga iyo kala dambeyntii halkaas ku cad yahay waa documenti runtii aad looga shaqeeyo weeye marka iyadoo ay socoto sifaynta dalka iyo xasilintu ayaa haddana dhismihii because waxa weeye runtii haddaanan waxa walba waxa ka horeeya nabadgelyada waxa u asal u ah rule of law sharciga iyo kala dambeynta isna waxa lagu gacmo u ah inaan leenahay ciidamo xoog leh oo Soomaaliyeed oo wadankana nabadgelyadiisa difaaci kara booliis xoog leh iyo sharciga kala dambeyn dhab ah in la abuuro haddaan soo laabto dhanka constitution-ka
iyadana waxa weeye road map ay ku caddahay in constitution la sameeyo kolle hadda waa la socotaan hore waxaa u jira qabyo qoraal laga soo shaqeeyey dhowaan waxaan magacaabay waxa la yidhaahdo the committee of experts oo runtii iyana la rabo inay ka qayb qaataan inay meesha hadda uu joogo laga sii ambaqaado laga sii horumariyo si degdegana loo sameeyo constitution dhab ah constitution ku bees garaysan shareecada islaamka ka tarjumaya dhaqanka Soomaaliyeed Somali customary law Soomaalina leedahay Soomaalina lagu dhaqi karo marka kaasina aan ka shaqeyno waqti macayinu leeyahay in lagu qabto haddii wadanku xasilo oo la sameyn karo census iyo referendumna markaasi uu noqdo de constitution dhab oo jira haddii kalena si kale oo lagu ansixiyo uu noqdo marka interim constitution lagu hawlgali karo August 2012 hadii la hayna dhanka reconciliation-ka iyo political outreach-ka amase nabadeynta dalka iyo dadka in la gaaro ayaan laftigeeda horumar badan baanu ka sameynay wala socotaan anigu bishii September bilowgeedii waxaan tagay Puntland wax yar ka bacdina waxaa yimid madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed ka bacdina waxaan u soo gudbay Galmudug runtiina ma aragtay isafgarad wanaagsan ayaana dhex maray heshiis baanu kala saxeexnay labada dowlad goboleedba dowladda la galeen marka dhankaas waxa isleeyahay horumar aan yani hore looga sameyn oo wanaagsan ayaanu ka sameynay insha Allah dalka intiisa kalena waxaan jecelahay in aanu degdeg u gaarno actually aniga waxa ay qorshaysnaa Mareykan baan aaday si lama filaana haddaan bixi lahayn qorshaygu wuxuu ahaa inaan aado galgaduud inaan aado ayaa ay qorshaysnay haddana waa aaday hadii la waqti aan dheeray dhanka dowladnimo wanaaga good governance anigu dhaqaalayahan baan ahay oo waxyaabaha waxa ka qori jiray waxa kamid ahaa good governance-ka runtii waxa weeye Soomaaliya waa ay duntay marka wadan uu civil war ku dhaco oo burburana waxyaabaha ugu daran oo burbura waxa kamid institutionska haykalka dowladnimo marka taa hadii la waayo oo taas ay burburto dowladnimo ma jirayso marka runtii waxaan u baahanahay in waxa yani jidka la dhisayo iyo sarta la dhisayo waxa ka muhiimsan institutionska foundation yani dowladnimadu good governance-ka dowladnimada waxa asal u ah good institutions haykal dowladnimo oo wanaagsan marka good governance laga hadlo badanaa waxa laga hadlaa dadku ay soo qaadaan corruption ka in la dagaalamo Soomaaliya waxa la yiraahdaa waa the most corrupted country in the world yani wadanka adduunka ugu corruption badan marka nima waxa jira Transparency International oo way nala daba galeen yani noma yimaadaan wadanka ma yimaadaan ma arkaan mali corruption ma jiro of course yani corruption-ka waxa la yiraahdaa lagu define garay lagu micneeyaa waxa Ingiriis lagu yiraahdo the sale of public office for private gain ana waxa weeye inaad iibiso xafiiska adigoo uga faa'iideysanaya dantaada shakhsiga marka xafiis badan ba malihin anagu ka dowlad ahaan laakiin lama ikirayo inuu jiri karo corruption marka Transparency International mar waxay tiraahdaa Soomaaliya waa the most corrupted country in the world saa la socotaan anagu hadda saan idin sheegay budgetka dowladda dhexe waa 900,000 ilaa 1 milyan iyo bar يعني بيشو بدحين جيرانا تضاب بقول يكونتون كون سجال بقول أو كون أو دولار مرك أو بدان تهين 1 مليون يبر مرك 1 مليون يبر هذا عنه مشاركة إنه صاحبه يشان بقول يكونتون حلبان هذا عنه كسي إنه دولة دي مشاركة عم بحنه هذا عنه بحنه current expenses كي خرج كي يعني أو وزارة لها يوكالة لها يعنذر هاشينك إذا ماذا قاركود يعني أنت كبحنا مرك corruption أنت اللي أكبر مش هكذا بيحكي كرا ويسأش هذا تشوك بجرو تشير عن ضدك وش هذا نيجيريا بروح الأورنجري وحوي وطن كأدون كأو corruption كبطل number 1 country in the world مرك سير number 1 واحد بروح على نيجيريا واحد نقطة number 6 بروح على نيجيريا ما حيسمى يسمى مركز سو يعني from number 1 to
to number 6 miracle maaragtay wax la yaab la dhaam xujiso waxa la Nigeria waxa ma sameeyeen Transparency International beelaalushti marka anagu lacag badan ma haynaan ku laalushno Transparency International si ay noo ka hayaan position ka hadda aan sanad walba gelinayaan laakiin runtii waxa weeye